xaaladda Laascaanood oo weli cakiran iyo madaxweynaha dowladda Soomaaliya oo ka hadlay xaaladda magaalada Laascaanood ayadoo uu ka careysiiyay dadka reer SSC kadib markii uu yiri hadal aysan ku qancin siyaasiyiinta ka soo jeeda Puntland oo war kulul ka soo saaray xaaladda magaalada Laascaanood hal qof ayaa ku dhintay laba kalena way ku dhaawacmeen mudaharaad maanta galigii dambe ka qarxay magaalada Laascaanood xaaladda magaalada Laascaanood oo deganeed galinkii hore ee maanta ayaa isbedeshay kadib markii galinkii dambe ee maanta ay dadweyne careysan dhagax ku tuureen saldhigga dhexe ee magaalada ciidamada booliska ayaa isla markiiba ugu jawaabay rasaas galabta waxaa la sheegay in meelaha qaarkood lagu arkayay mudaharaadyo goosgoos ah isla markaana waxaa la maqlay rasaas ka dhacaysa meelaha qaarkood dadka ayaa sheegaya inay ka soo horjeedaan dilalka soo noqday ee lagu beegsanayo waxgaradka reer Laascaanood inta badan dadka magaalada lagu dilay 10kii sano ee la soo dhaafay ayaa ahaa mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Somaliland ama dad u ololeeya qadiyadda Somaliland Cabdifataax Cabdullaahi Cabdi oo ah qofkii ugu dambeeyay magaalada lagu dilo waxa uu ahaa mas'uul ka tirsan xisbiga wadani waxa uu dadka ugu baaqayay in ay isdiiwaangeliyaan wasiiro iyo mas'uuliyiin kale oo ka socda xukuumadda Somaliland ayaa ku sugan magaalada Laascaanood welina ma jiraan go'aano cad ay xukuumadda Somaliland ka sheegtay inay ku wajahayso qalalaasaha Laascaanood madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa fiidkii hore caawa ka hadlay dhibaatada ka taagan magaalada Laascaanood ee gobolka Sool iyo amniga magaalada caasimadda ee Muqdisho madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu horreyn taasi tiiraanyo leh u diray qoysaska qaraabada iyo dhammaan ehelada ay ka geeriyoodeen dadka shacabka ay ku dhintay banaanbaxyada maalintii afraad ka socda magaalada Laascaanood waxa uu xusay in dadka Soomaaliyeed ay dhibaatooyin badan soo mareen maantana aysan mudneen in dib loogu celiyo dhibaatooyinkaasi ayadoo shacabka reer SSC ay ka xanaaqeen hadalka madaxweynaha kadib markii uu yiri dadka ku dhintay banaanbaxyada ayadoo ay sheegeen in ay mudneed inuu yiraahdo dadka ay xasuuqeen maamulka Somaliland madaxweynaha ayaa sidoo kale ugu baaqay Somaliland in xaaladda magaalada Laascaanood ay ku wajahaan xal aan xabad ahayn waxa uu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay mudnaan weyn siinayso xasiloonida nabadda adkeynta walaalnimada iyo wada noolaanshaha dadka Soomaaliyeed dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shacabka ku nool magaalada Muqdisho ku adkeeyay inay la shaqeeyaan ciidamada dowladda oo u helan fashilinta weerarada kooxda argagixisada ee Al-Shabaab madaxweyne Xasan ayaa sidoo kale sheegay inuu ka xun yahay wadooyinka magaalada Muqdisho ee xiran labadii maalmood ee la soo dhaafay taasoo uu ku tilmaamay inay ahayd mid sababtay duruufo la xiriira dhanka ammaanka maadaama magaalada Muqdisho uu marti ku ahaa madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Umar Geele waa laga gudbi doonaa arrimaha noocan oo kale ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh dhanka kale qaar ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada maamulka Puntland isla markaana qaarkood xilal ka soo qabtay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta war saxaafadeed ka soo saaray xaaladda magaalada Laascaanood ee gobolka Sool siyaasiyiinta ayaa ka tacsiyay dadkii ku dhintay rabshadaha ka socda magaalada Laascaanood ayaa ku eedeeyay maamulka Somaliland in ay xasuuq ka wadaan magaalada Laascaanood ayagoona ugu digay Somaliland inay sii wadaan beegsiga iyo barakacinta dadka shacabka xubnaha siyaasiyiinta ayaa sidoo kale ku dhaliilay maamulka Puntland inay dagaha ka fureysteen xaaladda amni iyo midda bini'aadanimo ee ka taagan dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay magaalada Laascaanood siyaasiyiinta ayaa sidoo kale wax laga xumaado ku tilmaamay in dowladda federaalka Soomaaliya iyo shirka golaha wada tashiga qaranka inay ka baaqsadeen inay cambaareeyaan oo wax war ah ka soo saaraan xaaladda Laascaanood ayagoo ugu baaqay dowladda Soomaaliya inay waajib ku tahay ka warqabka sharafka iyo nabadgelyada qofka Soomaaliga ah oo ay ka mid yihiin dadka reer Laascaanood oo ay sheegeen inay dhibana u yihiin midnimada Soomaaliyeed